kadib markii maalmihii u dambeeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay ku soo bateen dhaca gaadiidka noocyadiisa kala duwan taas oo qalqal ku abuurtay amniga magaalada Gaalkacyo ayaa waxa maanta maamulada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland ay si wadajir ah uga hadleen dhacdooyinkaasi iyagoo sidoo kale la fariin culus u diray dadka ku hawlan dhaca gaadiidka iyo qas abuurka ka wada magaalada Gaalkacyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdinaasir Cabdulqaadir Cabdulle iyo gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali ayaa isku wadajir ah ula hadlay warbaahinta qaranka waxa ayna sheegeen dhammaan waxaan uga heshiinay hadii Ilaahay idmo gaadiidkaasna in lagu soo celiyo dadka iska laha gacantooda waxa lagu leeyahay dadka gaarkaana dadka lagu leeyahay lagala xisaabtamo hadii Ilaahay idmo dhinaca bajaajyada la kala dhacayo oo sida burcadnimada loo kala qaadanayana waxaan rabnaa inaan digniin siino dhammaan waxaan rabnaa ciidamada qalabka sida inaan heegan buuxa gelino ee labada dawlad goboleed ciidamada kala duwan biliiska nabad sugidda asluubta militariga afarta ciidan oo jooga maxaan ku iraahdaa labada maamul inay heegan buuxa ay galaan oo janta barjanta ah dadka caadaystay inay dhacaan gaadiidka bajaajyada ah oo dadka u adeega waxa la rabaa dhammaan in gacan bira lagu qabto hadii Ilaahay idmo qofkii wax ka maqan yihiin oo dhibana ah waxaan rabnaa inuu hay'adaha amniga u soo dacwoodo saldhigyada uu yimaado laakiin gacantayda aan anigu wax ku raadsanahay wax shaqeynaya ma ahan waxay amrayeen ciidamadu in ay tilaabo cad oo sax ah ay ka qaadaan cidii lagu qabto dhac iyo boob iyo bililoqo waxaan cadeynaynaa dadkaasi inay yihiin dadka faa'iideysanaya gobolkan amnigiisa waxaan cadeynaynaa inay yihiin dad meel kale iyo shabaab ka soo qaatay qandaraas waxaan cadeynaynaa inaysan ahayn dad gobolka u dhashay ay dad doola ay yihiin dadka qashqashaadaas iyo dhibaatadaas wada maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bishii May waxaan isugu nimid hotel 5 star labadeeda maamul iyo odayaasha labada dhinac waxaan ka wada hadalnay laba qodob oo aad muhiim u ah labada qodobna waxay ahaayeen gaadiidka lagu haysto meesha la yiraahdo bandiirada iyo dangorayo waxaan kaloo ka wada hadalnay bajaajyada dadku ay kala dhacayaan oo magaalada ku soo cusboonaaday arrinka bandiirada waxaan kaga heshiinay berrito gaadiidkina in la keeno wixii shariicada islaamka dhameystir u baahana labadii shakhsi oo wax isu sheeganayay hawshan ka kacday in berri la isugu keeno shariicada islaamka laguna dhameystiro shariicada islaamka insha Allah taala qodobka labaadna waa qodobka bajaajta waxa weeye tuug baa ka faa'iideysanaysa aan waxba ka maqnayn magaaladay kala baxeen Galeysoor bay la aadeen Cadaaday la aadeen Buldogo bay la aadeen Bacaawin bay meel kasta la aadeen yani tuugtu waxa weeye waxba kama maqnayn niman aan waxba ka maqnayn oo waxa weeye maafiya dadka ay wax ka maqan yihiin waa la yaqaanaa waa dad tirsan ayagana waxoodii waa loo hayaa laakiin haddii ay dhacdo bajaaj dambe in cid ay dhacdo hay'adaha ammaanku tallaabo sharci inay ka qaadaan baanu amraynaa taliye ku-xigeenka ciidanka xasilinta booliiska gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland Dhamme Cabdifitaax Cali Faarax ayaa isla sheegay in saacadihii u dambeeyay ay gacanta ku soo dhigeen ku dhawaad 20 ruux kuwaas oo sheegay in aysan wax hantiya ka maqnayn balse ay doonayaan inay dhacaan hantida dadweynaha inaan u istaagno xalana iyo waa laga shaqeynayay ilaa 20 qof baa u xiran waxaan rabnaa inaan niraahno qofkii gaari ka maqan yahay yimaado saldhigyada ay iska diiwaan galiyay hadda laga bilaabo qofkii aan falkaas ku qabanna ma ahan qof gaari ka maqan yahay waa qof qalqal ugu tala galay gobolkan waana waxaan leenahay waa argagixiso haddii gaari ka maqan yahay annaga ku filan annaga u keenayna meeshu jiro ha u yimaado ha iska diiwaan galiyo hay'adaha amniga iyo maamulka waxaan rabnaa inaan cod dheer ku niraahno ninkii gata gaari la dhacay qofkii gata wuxuu la mid yahay mid ka dhacay Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.